arrintaas saaka ka hadlaya waxa weeyaan taliyaha sirdoonka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taliyaha sirdoonku wuxuu taarget gareeyay oo si bareer ah oo gabasho lahayn u weeraray ciidamada sirdoonka wixii kaga jiray beesha Habrawal 140 nin oo saraakiil iyo ciidan bay isugu jira oo sirdoonka qaranka ah ayuu dil ku xukumay. dilka uu ku xukumay waxa weeye caalamka waa ka mamnuuc ninka sirdoonka qaranka ah oo sirdoonka dawladda ah in magaciisa iyo sawirkiisu inay baxaan. 140 nin buu bacadka u waray. 140 ka kiyo bacadka u waray waxa ahayd qarankii Soomaaliland oo la dumiyay ay ka dhigantay. wuxuu haddana ku daray inuu si bareer ah saraakiisha u xidhxidho. wuxuu ku daray inuu seelada ku xareeyo. waxa mamnuuca nin sarkaala hadduu xataa dambiba galaamo dhishbiliinba loo xidho in seelada la geeyo silsilad lagu jabiyo. waxa laga wada dharagsan yahay maanta baraha bulshada inay saraakiil ciidanka sirdoonka iyagoo silsiladaysan inay baraha bulshada oo laga yaxayo feedhaqaawan oo la daldelay inay baraha bulshada yaacayaan sawirradooda. adduunyada Soomaaliland intay jirtay kamay dhicin oo arrinaan weli ka dhicin waa koow. haddana saraakiil baa xidhan ninka daldelani ka mid yahay. waxaan leeyahay taliyaha sirdoonka haddaa reer u ceel qabto adiguna halka madax ka ahaan rubban ku sheegay naadir. madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay qalinkaagu ninku magacaabay in marka reer xasuuq lagula dhaqaaqo haddaanad raalli ka ahayn arrinkaa jooji. arrintaa madaxweyne haddaana doonin inaynu ku kala fogaano oo lagu kala dhaqaaqo inaad weliba raggaad soo magacawday haddana xasuuq la dhex galaan Habrawal oo ninba meel oo ciidankii maanta yaa difaaca qaranka yaa difaacaya waaye. marka ciidankii qaranka sidaa loo galo ee sirdoonkii qaranku maanta markaasaa weliba wuxuu sameeyay ninka jaamac la yidhaa isagaa ka jawaabi doona waxa sababta colaadan halku ka keenay isagaa ka jawaabi doona. wuxuu weliba sameeyay raggu sidaa bacadka ugu wadho haddana weliba transfer bedel uu diray gobolada bari oo si loo laayo weey. taana adeer bayna ninka xagtini gaadho jaamacow aday dushaada saaranta. waxaa leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka madax rag buu nagu joogaa. waxaanu tabanaynaa waa halkeeda tabashadayadu waa halkeeda iyo wixiina soo kala maray intaad xukunka doonaysay madaxweyne. laakiin dhaqdhaqaajin time ka bilaabantay tuwaanu reer ahaan dhageysanayno nu yeelayno maaha. saraakiisha inta xidhan hadda faraha laga qaado. arrinkaa horena xaal marinteedii baan ugu fadhinaa. ninkaa sirdoonka qarankina da reer buu ka dhashay. haddii maamul iyo nidaam la raacayna madaxweyne adigaa magacaabay. hadday isagiiyo reernimadiisa ku kooban tahayna dee annagaa ka xisaabtami doono reer buu ka dhashay oo waxaa nagaga maqan isagaa dee sheegi doonaa. inta xidhanna imika oodaha laga qaado. 100 cishana wixii dhib dhacay intaasoo telefoon baa nagu soo dhacday oo mid walba waxaanu warbalukaadiya wasaaradihii qayla ka soo yeedhaysa shaqaalihii xasuuq bay sheeganayaan 100 wax baa la sheegayaa. waxaa kale oo dhan waa la isaga iman doonaa. imika raggaa xidhanna oodaha laga qaado. ninkaa jaamacna ama waa nimaad madaxweyne adigu magacawday diina kala gaadh 100 mitir buu jiraa madaxtooyadaada xafiiskiisu oo wuxuu waxa ku sameeyay waajibkeeda hala mariyo sharciga hala mariyo maxkamadda la hor keenay. wuxuu yiri baa lisaa markuu meesha yimid reer baa ka buuxa. waxyaabaha la sheegaya wax macquul ma aha. hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne jaamac taliyaha sirdoonka adaa magacaabay nin kala gaadh inta ay ka badan waa dulmi lama qaadi karo. annagoo qarannimada ilaalinayna annagoon xumaan ka shaqaynayn laakiin adeer nama qabata arrinkaas. nimadaasi adeer waa xoogii dalka waa raggii dalka xoreeyey rag ayaa dhalay. walaaladood baa dalkan xoreeyey adeeradood baa xoreeyey.